qiso aad cajiib u ah oo ka dhacday dhowaan waddanka Masar. qisadan ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ka dhacday gobolka la yiraahdo muxaafadad Minya meesha la yiraahdo. haddaba halkaas tuulo ku dhow ayaa waxaa ku noolaa nin dhalinyaro ah oo magaciisa lagu sheegay Naasir wuxuu lahaa 6 caruur ah iyo xaaskiisa ayaa la noolaa. gabadhiisa weyn waxay jirtay 14 halka wiilka ugu yar caruurtiisana uu jiray 5 sano. 6 caruura iyo isaga iyo xaaskiisa ayaa ku wada noolaa halkaas. shaqadiisu waxay ahayd dadka ka shaqeeya qudaarta iibiya. iska noolaa nolol dhexdhexaad oo isaga noolaa gurigiisa, caruurtiisa, biilkiisa, noloshooda wuxuuda uu ku filnaa. haddaba muddo waxaa jiray khilaafaad soo laalaabtay oo markaa ku dhex maray isaga iyo xaaskiisa. dhowr jeer waa la isku dhacay, waa la isqabtay, markii dambe xaaladdu waxay ka badin weysay in la kala tago. Naasir wuxuu ku yidhi intaa ka badan islama joogi karno, waa isku rafaadnay, waa isku dhibaatoonnay, marka aan kala nafisno. sidii lagu heshiiyey, gabadhii 6 caruurta ahayd way ka haysatay, waxay la degtay xaafad reerkeedu degan yahay. waxaa soo haray Naasir keligiis. gabadhii markii ay degtay xaafadii reerkoodii, wax yar kadib nin ayay isbarteen, way guursatay. ninkii waxay u dhashay wiil. ninkii Naasir ahaa isaguna gabar ayuu guursaday, waxay u dhashay gabar. labadoodu markaa qof walba reer cusub uu yeeshay, awlaad cusubna waa dhalay. kuwii iyaga ka dhaxeeyana waa dhankoodu, waa maartay way ka wada dhaxeeyaan, laakiin nin walba adeegiisa kale uu wataa, howlihiisa kale uu iska wataa, nolol kale iyo howl kale ayuu bilowday qof kasta. sidii hawshu u socotay oo howlaha u socdeen 2 sano iyo bar 3 sano meelaha kadib, haddana gabadhii way isfahmi waayeen ninkii ay guursatay. laakiin Naasir gabadhii uu qabay iyo gabadhii yareed ee u dhashay waa caadi, noloshoodu waa okay. iyadu haddana gabadhii kale waxaan sheegayaa Naasir furay oo 6 caruura dhashay. ninkii kale guursatay wiilka u dhashay, dana way isku dhaceen, dana way kala tageen. marka caruurtii kalena way sii weynaanayaan. markii hore la kala tegaya ayaa gabadha weyn 14 jir ahayd, wiilka kale 13 jir. marka caruurtu way soo weynaadeen. waxaa bilowday marka dood dhex maraysa caruurtii iyo hooyadood. waxay yidhaahdeen, hooyo ma aabbaheen nagu celis? guri weyn oo uu ka dhaxlay waalidkiis ayuu degan yahay Naasir. gurigaasay markii hore ku noolaan jireen. caruurtii marka meeshan baadiyaha iyo colayskan waxa kan iyo ma rabaan. marka maalin maalmaha ka mid marka Naasir uu soo ziyaartaa, uu soo booqdaa caruurta, uu u yimaadaa. halkaasaa marka lagu wada hadlay. caruurtii waxay yidhahdeen, aabbo ha naga tegin, na kaxee, gurigaaga nagee, meesheeni nagee, meeshaanaan degno, meeshaan waa la qabsan weyne yidhahdeen. gabadhii marka wuxuu weydiiyey, haye caruurta saanay leeyihiin maxaa samaynaa? waxay tiri, aniguba waa igu wareeriyeen, marka caruurta maxaa la samayn? waxay tiri, marka caruurta gurigooda ah la geeyo. caruurta marka guriga marka la geynayo dee keligood ma noolaan karaan, isaguna xaas kale uu leeyahay. marka wuxuu yidhi, fadlan waxaan ku weydiisanayaa inaa caruurta soo raacdid oo dabaq ka mid a guriga qayb ka mid a apartment aad degtaan,
apartmentiga kalena aniga iyo xaaskayga aan deganaan ka waran sidee kula tahay okay tiri ninkii naasir ahaa caruurtii u soo raray wuxuu soo dejiyey gurigii qayb ka mid ah xaaskiisii iyo gabadhii yareedna isagaa wuu la degan yahay halkanna caruurtiisii kalea u joogta caruurtii iyo isagu way isku dhex jiraan caruurtii way soo baxayaan gurigan eedadooda imaanayaan oo odagu degan yahay odagiya wax la cunayaan way baxayaan xaggay aadayaan waa iska nolol iska caadiya iska normaala lagu noolyo haddana ilmaha badan hooyadii dhashay waxay bilowday inay odagii la dirirto haddana waxay leedahay adiga qasaalad fiican baad usoo iibisay xaaskaaga annaga u ka tira badan qasaalad qadiima haysanaa kan waaye iska daba wareeg kale ku bilowd ninkii naasira wuxuu leeyahay walaalay dee naga daa waxaan ani adiga hadda dad isqaba ma nihin caruurtaasaa naga dhaxaysaa ee mushkiladan iyo waxaan iyo buuqan iyo naga dhaaf ilmahan dartooda ayaa halkan u degan tahay ilmahan iyo hawshooda iyo sidii markaa hawshaha lagu wado nag waa xanaaqday islaantu dee waa islaan iska dabeecad qallafsan goorba waa wareersan tahay ninkii kalena waa soo furay ninkan way la heshiin weysay waa iska wareersan tahay markii dambe inta xanaaqday baxday waxay aaday guriga ehelkood keligeedaa baxday iyo cunugii yaraa oo ninka kale ka dhalay hore u kaxaysatay laakiin 6dii caruura iyo naasir way isaga tagtay naagtii markay carootay dee ilmihii naasir asagay wax la cunayaan way la quraacanayaan way la qadaynayaan way la cashaynayaan aabbahood markay dhowr maalmood maqnayd ayay soo laabatay iyadoo dhibaato weyn gurigii ay ka dhacday guriga waxaa dhacay caruurtii mid ayaa habeenkii markii ay casheeyeen oo aabbahood la casheeyeen oo gurigoodii la geeyey oo ay seexdeen mid ayaa caloosha looga qabtay caruurtii mid walba qayladaas oohin odagii wuu soo kacay kan qabo isbitaalkii geey 3 markii isbitaalka uu geeya isagii haddana la qabtay 4 labadii guriga looga tagay maamadii kale timid iyadana labadii xanuunsan u timid iyadana labadii la soo carartay isbitaalkii la keenay 6dii caruura iyo aabbahood way xanuunsan waa la yaabay isku sii u xanuunsan calooshu mid walba gacanta ku hayaa madaxa dhidid ka daadanaya jirkooda xaraaradu way kulushahay tanna hadday timid guriga dhowr maalmood ay maqnayd tii kalena cunugteedii haysataa odagii 6dii caruurahana xaaladooda waa loo yaabaa midaa dhimatay mid kalaa dhintay ilaa markii dambe odagii uu dhintay 6 caruura iyo aabbahood ayaa dhintay masar ilaa hadda waa aadaa looga yaqaanaa qisadaas ka dhacday maxaafadad minya meesha la leeyahay marka booliisku waxay yidhaahdeen waxaan wax caadi maaha maxaa helay dadkan cudurka ku dhacay muxuu yidhi baaritaan ha lagu sameeyaa leeyahay meydadkii caloosha inta laga qalay calooshoodii baaritaan lagu sameeyey waxaa laga wada helay aalad sun ah kulligood isku mid ah yaab sunta yaa siiyey yaa dilay odagii iyo 6diisii caruurta ahayd war yaa dilay yay la joogeen yaa cashada u sameeyey su-aalo badan aad yimid booliiskii a yimid baarayaashii waxay yidhaahdeen guriga odaga yaa jooga xaaskiisaa joogtay iyo gabadhiisa iyagu maxay yihiin iyagu waa nabad qabaan guriga ha la tago cuntada guriga lagu sameeyey waa in la helaa waxa ku jira horta waa in la xaqiijiyaa sunta calooshooda laga helay cuntaday ku jirtaa cuntada ha la baaro gurigii digirtii iyo yaanyadii iyo wixii la kariyey ee cuntada ku cuneen
ay wixii dhan ayaala meesha ay gobol tahay min la yiraahdo adeegyada iyo qalabka waaweyn oo magaalooyinka waaweyn yaala ma yaala illa dalba waa la keeno marka laakiin qalab yar ay wateen meeshii tageen wax sun raadkeeda way ka waayeen alaabtii iyo cuntadii iyo wax ninkii baaraha ah wuxuu yiri waxaas wax la yeeli karo ma sun calooshooda sun isku mid u gashay iyagoo casheeye seexday wax dhici kara ma si fiican loo baar qalabkii barka waxa laga dalbay magaalooyinka kale ee Masar waa la soo qaaday qalabkii waa la keenay qalabkii markii la keenay baaritaankii lagu laabtay wixii nag lama waayo wax sun raadkiisa lama waayo naagtii la wareystay waxay tiri aniga adin ma casheeyay soo casheeyay tiraan waa la casheeyay aniga waxba ma noqonin yaab saxafiyiintii dadkii oo dhan way yaabay ninkii baaraha ah sheekadu markuu way yaabay way ku adkaatay naagtii kale xagee jirtay naagtii kale waxay tiri aniga reerkayga jiray waaba maqnaa maalmahan ma joogin ninka isku yara dhacnay waa xanaaqay markaa soo laabtay iyo mucjisadan meesha ka dhacday ayaan la kowsaday ruuxa maxaa ninkii baaraha wuxuu yiri labada naag la soo xidho naagtii hore u qabi jiray ilmaha dhashay iyo middan cusub labadaba la soo xidho labadii mid kasta waraysi gooni u ka qaaday tan waxay tiri aniga waa isku yara dhacnay waa baxay 2 maalmood ilaa 3 maalmood xaafadda ka maqnaa waxaan shaqo ku malay markaa imid labadeeda cunug xanuunsan markaa imid aan soo qaaday isbitaalka la soo cararay awal mar soo istaagay ayuu xanuunsan arag odagina odagii afar kale isbitaalka la aad kuwaas aan soo qaaday qolkeeda lagu celiyay tii kala loo yeelay ninka marka baaraha ahaa wuxuu ku yiri dhageyso odaga iyo 6diisa caruura waxaana loo sheegay inaa sumaysay sababta u sumaysay sheegaleen waa u dish mushkiladda ugu weyn naagtan gurigan odagan uu leeyahay Naasir ayay rabtaa inay odaga disho 6 caruura disho kadibna gabadheeda yartaay iyadoo ay guriga dhaxlaan maadaama naagta kala xataa aanu qabin u fiirso waxa ay halaaga inta la eeg qoyska ugu sameynayso war dadka bini aadamka qaar aan naxaynaaba jira alla ka cabsi iska dhaaf bini aadamnimada iska dhaaf noloshooda waxay ku cabirayaan maalmo kooban iyo hanti yar la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim موجودة naagtii waa gariirtay waa qof dambi galay oo dhibaato geystay waa argagaxaysa moogtay waraa dhageyso dhaay baari xogtaada waa haynaa sunta ku disho nooceeda noo sheego dhaay anaga gabgab ma rabna aniga waraa dhageyso dhaay sunta sheeg si u handadaayay ugu qaylinayay wax walba loogu sameynayay markii dambe waa qirad u fiirsada waxay leedahay khubs ama rootiga markii la cajiimayay ayaa waxaan ku cajiimay u fiirsada sunta xasharaadka beeraha iyo waxa kan iyo cayaanka lagu la dilo mid kamid oo halis badan ayaan ku daroon ku cajiimay haye suntaas marka rootiga kaliya ku sameeyay haye laakiin waxyaabahan kale maaratay ya waxa cunaan digirta ayaa waxa lagu daraa baxeeto ukun ama yaanyo iyo waxa lagu daraa waxa khubska lagu cunaa alaabtaas kale ma ku taaban rootiga kaliya ayaa baashulahay odaga iyo caruurtiisa waxay cunayeen rootiga iyo baash anigu marka rootigaas ma cunin haye waxaan haystay rooti kale oo banaanka ka keensaday waa la cunayay laakiin cuntadii agtoodan ku cunayay meeshaasaan ku cunay anigii gabadheeda yartaan afkaan u gelgelinay si aanu ay shakiba meesha u imaan way yaabeen booliiska
marka waxaa layidhi intaasoo dhan maxaad u samaynaysaa waxay tiri ninkan naagtii hore uu qabi jiray gurigeeda kama dhammaado u fiirsada meesha mushkiladu ka jirto wax badanaa isku qasan ninkan laftirkiisu dhibaatada naag kale hadduu qabo oo cunug kale u dhashay tii kale inta soo raro guriga soo dejiyo isagoon qabin caruurtii haddana u tag midaa xanuunsan kaale madaxa laga hayaa daawo ma haysaa kaale wiilka u imaa maantao dhan gurigaanu tanay ku xumaynaysaa ninkii marka meeshaasaa dhibaato ka soo gaarta waxay tiri aniga qaatib billah ayaa ka jooga naagta xataa inaad dilaa rabay tiri naagta xataa qorsheyga waxayd inaan raacsiiyo laakiin iyadu markay timid gaaja hayso inaa cuntada u geeyaan rabay tiri oo ayadana aan ka takhaluso laakiin way soo daahday tiri maana iyada laftirkeeda waa cuni lahaa marka kow waxay tiri arrintaasaa u sameeyey ninkan nagadaa caruurtan hanoo keena anoo le meesha soo dejiyey asagii caruurta kala dhammaan mayaan xaaskii uu furay oo maaragtay guriga dhinac ka joogtay asagu ma kala dhammaanayaan aniga de marka meesha qaati bilaahi yaa nolosha ka istaagay tiri marka dambe waxaan go-aan ku gaaray tiri war waxa kan maa isdhaafisid kulligood maca naagta 6 cunug maca isaga kulli ka takhallus adigii cunugtaada ku feesteeya guriga iyo nolosha iyo waxa dhan marka dambe hawshaas asaasa u qabtay tiri waa yaabeen dadkii masaarida waa yaabeen war wuxuu adeeg badana xasidsana ilmaha yaryarka ilmo yaryaroo 6 sano 7 sano jiro iyo waxa masaakiintaas maxay u dilaysaa waxaasoo dhan waxa isugu jira masayr iyo shaydaan iyo wax walba isugu darsooma ka warrama waa qiso cajiiba ilaa hadda waxaa lagu leeyahay muxaafadad minya la yidhaahdaa ee ka dhacday warbaahinta sawiradii ninka naasir ahaa caruurtiisii wixii oo dhanaa lagu soo bandhigay sheekadu waxa ay noqotay sheeko yaab leh naagtii waa lala kacay cunugtii yariista iyaduna bannaankay kusoo dhici doontaa u fiirsada laa xawla walaa quwata aabbaheedii hooyadeedaa dishay walaalaheedii ayadaa dishay ayadiina sharciga markay wixii sheegtay iyaduna waa la saaray tiirkaa la saaray halkaasaa lagu khaarijiyey gabadhii maskiintaeeda marka soo hartay walaal male aabba male hooyo male waxa leedahay male waxa kaliya oo familkaasoo dhan ka badbaaday waxaa lagu leeyahay waa hooyadii hore oo ilmaha dhashay iyo gabadhii yarta ahaydoo miskiinta ahaydoo oo hooyadeed dhibaatada geysatay adduunka marka intaad joogtid waxyaabo badana dhacay marka talooyinka uu bixiyey ninka qoraaga abudalaal waana sheekada ka soo xiganayna waxaa ka mid a talooyinkiis warragow islaamaha aad qabtaan ama xaasaska ha isu geynina dhibaato weynaa ka dhalan karta mushkilad weynaa ka dhalan karta xataa haddaadan midood qabin oo midda kale aggayso caruurtii iyo wixii ma la kala dhammaanayo marka khatara waaweynaa ka iman kara arrinkaa ka fiijignaada midda kale dumarkana wuxuu leeyahay dumarow ilaahay ka baqa dhibaato masayr iyo waxa kan calmo yaryar iyo loo dilayo iska ilaaliyuu leeyahay marka waa sheeko runtii aad u xanuun badan ay ahayd bal adikuna fakarkiina iyo aragtidiina sida caadada ahayd qisooyinka aad uga qayb qaadanaysay noo soo qora